jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska ayaa casho sharaf ku maamuustay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta sidoo kalena ahaa wasiirkii xanaanada xoolaha ee xukuumaddii madaxweyne Siraanyo. xafladani ayaa ahayd xafladan hore uga dhicin magaalada London tan iyo intii doorashada laga soo laabtay. mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. Somaliland intiinaas ma oran karo qof baan u tilmaamaya darajada uu sitay mas'uul ku sitay laakiin waxaan hubaa mudane Cabdilaahi inay mas'uuliyiintii reer Somaliland ku dhantay halka kan waa xisbiyadii qaranka oo gacmaha haysta waa community-yadii waa haweenkii waa inamadii dhalinyarada ah dhammaanba dadkii yimidii reer Somaliland ayaa ku yimi caawa oo wariyaashii fanaaniintii ay ku dheeyihiin saaxiibkay Cabdilaahi Maxamed Daahir xukuse waxa weeye halkan ku soo dhaweynayna waan natiiso watineynaa maanta runtii sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan Cabdilaahi waa xafladaha reerka ama dhifka ah ee ka dhacay UK in dhaweydna tan oo kale ma bay dhicinba marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynaynaa siina sugotinaynaa wasiirkeena Cabdilaahi Maxamed Daahir أنا ربع عنا مركان ربع حيرين شيء مركان لوده محل مرة بس يدي جيسا ولا الإيد أنا هيستا مركان أنا داني الإيد أنا هيستا عادي أدم كوس سلام يا عاد بان نور شيء ناينا الدرك إلهي في النبض جيو وأنا نقول ما كنت من الدرك وكنت مركان شغال هذه بانو بان هاي ما قلته وسير عبد الله إنه أفرتي دولدود الصومالي لامبا الماي عبد الرحمن تور عقال داير ريالك اهي احمد محمود سيلايو افر تامد حويلبا ولا سو شقي waxa waliba u dheer title aan cidina lahayn mujaahidna uu ahaa wuxuu ahaa wasiirkii ugu aftahansanaa inta wasiirada laysma caasiyo waxa la yidhi xaasheenin libin ka xistiye xubihii waa yaabe wasiir la mida oo la aftahamaa miyaa aragtay boqol waa la dagaalay xukusaanigu mar horaan u mahmaayo mar dambe ku celin maayo way hadalkiina dadkii iga aftaansanaa baa yidhi waxaan u leeyahay ilaahay ha ka dhigo bridge-kii ummadan isku xidhada innagana safaaraddu waxay u taagan tahay idinka inaad la shaqaysaan oo inala shaqayso madax dhaqameedka mas'uuliyiinta saddexda xisbi safaaraddeena mas'uuliyiinta safaaradda hay-adaha kale tirada badan ee samafallada ee halkan ku sugan inagu waxaynu maanta u baahannahay dalkeenu marxalad adag buu galay dhinaca kalena wuu muuqday oo dalkeenu maanta wuu istaagay dabadeetana mar kasta oo dalkeenu sii weynaadaba cadowgiisa dabadda iyo hagardaamooyinku iyo xasadka dabaddu way badanayaan way la korayaan innagana mooralkeenna iyo difaaceenna iyo niyadsamideenna iyo isjacaylkeenna iyo dhufayskeennu ku jirnay inaynu sii adkayno mooyaane inuu kala biiqbiiqo oo ay ladnaantu innaga iskeen tusto looma baahno anigu kulmiyaan ahay waanan ahaanaya laakiin ucid iyo wadaniba waxaanu doonayaa inaanu ka wada shaqayno sida ay dadka oo dhammi u midoobi lahaayeen ee ay u garab joogsan lahaayeen dhismaha dowladnimada ee aynu gacanta ka hayno sida aanu cadowgu jaanis ugu heleen in uu dadka Somaliland gudihiisa ka dhex faa'iideysto. Adnaan Cabdi Saxardiid, Saab TV, magaalada London.